حاجة يضاي حركوا لشيء حق لمرويو حالة دابري مين ما جاء اسمري يوم قالنا بردادي مين هذه ما انتي عيل كما وحلي فيدا وستدي الربع الله waxaanu joognaa duleedka magaalada Ceergaabo intan dambe abaaraha waxa magaalada la iiga sheegay in lagu reeyay geel halkan uu ku hayo Ali Baashi Maxamuud oo ninka yaag taagan geelana caanihiisa ay magaaladu manaafacadsanaysay bariyahan dambena waxa soo badanaya magaalooyin fara badan oo kuwa Soomaalida in sidan oo kale geela loo dhaqo oo beera lagu hayo oo geelii la foofin jiray la iska daayo goordhowba la maalaya geela Ali Baashi baa laakiin iiga waramaya bal hada geelin xaaladiisa geelani hadda wuxuu xiray aad iyo aad baad u mahadsantihiin horta inaad soo siyaarateen geelani wuxuu xiraysan yahay hadda muddo 2 sanadood iyo badh lama dareeriyo naqaba iyo cawska iyo caleentaba iyo wax kale oo aanu siino aan halka uga beeray beerta dhexdeedaba yaanu u goynaa meel daraho halkan oo hadda ida arki doontaan darkaas lagu siiyaa si kala qaybsan baa loo siiyaa nirgaha yarana si baa loo siiyaa geelo waaweyna si geelo waaweyn waa qaar riman iyo qaar irmaan imsa halaad baa markaa halka jooga calo shalay baanu diray geeli badnaa ee gaanaha dhowr iyo 30 baa hadda halka jooga laakiin geeli badnaa ee gaanaha ahaa aan hadda rimayay shalay baanu diray soolasha ay ka diin roobabku halkaas ku soo rimaya mar dhow nirgaha lagu sii deynaya sidii sheegtay halaha laakiin calow haddaan su'aal kale ku weydiiyo marka geela sidan oo kale loo dhaqo oo Soomaalida imka arrin ku soo badanaysa maxay kaga duwantay sidii hore geela la foofin jiray waxa weeye geela iyo dadkuba way dhibaataysnaayeen dhaqankii hore ee Soomaalida sidii ay u daba socon jireen anigeygani beri baan raacayo 26 maalmood baan biyo arag oo hawd intaan aan ka soo waraabinay 26 maalmood baan biyo arag laakiin geelani waxa weeye geel fadhiya hawl ma laha isaga daryeelkiisa ku fiican tahay hal walba kuruska baxaya caanaha badanaya iyo manaafacaadkiisa 3 goor baan maalintii lisnaa habeenkii subaxii baa la lisaa harkii baa la lisaa habeenkii baa la lisaa markuu iska ayda ku jiray lama awoodi kareen daryeelkiisuna waxa weeye caafimaadkiisa taxanuusanaysa wax ku soo kordhan wad ogaanaysa inkastoo cudurka geela Soomaaliya ku dhacaa iska yar yahay cudur yar uu yahay marka waxaan kula talin lahaa dadka in badan waan ka sheegay mass media waxaan kula talin lahaa xoolaha in la fariisiyo oo socodkan dheer iyo abaartan marba jibinaysa ee haddana hadhowto la leeyahay waan cayroobi in shan tira lahaa ama 200 halaad lahaa ya cayroobaya marka waynu dib u bilaabaa abaartii markaa dhacday ee welina diifteedii ay taagan tahay wax saameynaya inaba kugu yeelatay haba ka yaabin niriginaga dhiman waa ka balgeelba in yar kamarada ku qabto kuruska soo baxay markuu gelgelimaysto inuu ka kici waayaan ka baqnaa baruur darti waa ka halka fadhiya saas oo eg baruur buu isjibiyay marka maba ogaba ya waxa yar oo cunayaana geelu iska waaweyn yahay cir ma leh nirgu markay sidoo kale dhawaaqan oo kale sameynayaan waxa la yiraahdo way dunuunacayaan oo waxay u dunuunacayaan in la liso geeli xilligii bay taagan tahay ay caanaha cabbi jireen way taasina hadaba ku dhaqaaqaynaa waa hagaag hawshaas imika la gudagelaya geeliba nirgaha lagu sii deynayaa oo wala soo godlayaa haddii bariyaha daawada aanad arag geel la soo godlayo iyadoo waliba fiidkii waa halka caliye iyadoo maanta iyo shalayba magaalada uu roob helay oo jawi aad iyo aad u wanaagsan uu magaalada ka jiro Ceergaabo ayaa geelina imika loo soo lisaya geeli baynu bilaabanaa in la liso geelu magaciyu leeyahay nirgaha hal walba hooyadood baa loogu yeedhayaa waxaan u malaynayaa inay ku bilaabi doonaan dhamays oo ku sidkan miisaan iyo hasha la yiraahdo gobaad saddexaas waa isku sidkan yihiin sidigtu waxa weeye nirigta ka dhaxaysa saddexdoodaba marka waa sidig marka hal waliba magac bay leedahay
magacaasaa loogu yeedhaya marka loogu yeedho waa fadhiyaan waa arki doontana way ka casaan waxaa la isugu sidkay marka calow waxaa la isugu sidkay nirgihii baa ka dhintay nirgi yaryar cudur daacuunkii aanu dadkoo kale u ekaa oo 3 maalmood keliya nirgu noolaanayaan yaa nagaga dhacay marka markiiba dawaanu helnay hargeysaanu ka helnay kiniin baanu ku guray 3 kiniin maalmaha dambana jabjab baa la siinayaa uu istaagayaa daacuunka war wanaagsan weeye soo godo dhamays soo daa dhamays intaa uu soo godlayay cabdiqaadir imisa nin baa geela hayoo ka shaqeeya calow waxaa ka shaqeeya 2 nin labana beertay ka shaqeeyaan 4 nin baa shaqaale ka meesha halkan ceel baa ku yaal shaqo abuurkii magaaladana waxaa ka daran shaahad magaalada ka cabaysaan jiilaalkii abaaruhu dhaceen ee aan caanaha la haynin geeleegun baa lagu cadaysanay odayaasha liitay xoogaa waa yeelkiina geelun bay ka cabiyeen caanaha marka wax badan bay soo daayay tani waa tan wayna xarbi wayna xarbi soo daa xarbi waxa loogu bixiyayna waa sheeko dheer hasha lafteeda dhowr goor la isku qabqabsaday sumado badan bay leedahay marka xarbi baa loo bixiyay caliyow dadka markaa sidii dhaqanka Soomaalidu ahaa geela meelo magaalooyinka ka fogfog ku haysto oo deedna laga yaabo saad sheegayso in abaartu qaar kalayso oo dhibaatooyin kale ay ka hor yimaadaan waxaad kula talinaysaa inay kulligood magaalooyinka dushooda soo degaan waxaan kula talinayaa Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Somaliland waxaa la keenaa caano booro badan oo kala nooc oo waxay ka yimaadeen aan la garanayn inagoo xoolaha ku caanbaxnay oo geela Afrika ugu badan inagoo aan leenahay ama adduunkaba aynu la tartamayno inaynu caano booro keenna maaha saa darteed anigu waxaan kula talin lahaa dadka geela hayntiisu lacag badan ma cuno waa ciryar yahay waxaa laga yaabaa maalintii inuu 4 kiilo cuno 4 kiilo ama cawsa ama caleena ama calaf kale oo la siiyaa ama galeey 4 kiilo kama badsanayso biyahana waa la siinayaa biyuhu badsadaa marka waxaan kula talinayaa inay geela dhaqaan si ay caanaha waa inay markaa helaan Soomaha suuq geyntiina ama waxaad kula talinaysaa inay miyiga la soo faarqiyo magaalooyinka miigana waa la joogay miigana waa miigana qaar baa joogaya geela caanaha lahayn wuxuu joogayaa miiga geela caanaha lahayn magaalooyinka la keenaya marka in geeli la dhaqo xoolihii la dhaqo imika caanahaygani waxba kama aha hadda waa wax yar marka loo eego baahida magaalada Ceergaabo waa tan la soo godlay hashii ugu horeysay dhinacan hadda kamarada ku soo yar qabo حربي بالله يلاهذا ها سمدها إلى هي سوماركتي تا وحال إلى فرق أورتا هي بركمو فرق أورتا فروي تاس ألف قورتا بركمو دون وطها شيني كتا سمدها سو حيكتي من أودويني for your information أرمو جيلا يجي مركي دراويش تانو تشبني تذكي تجي يكون بادي حقه يا سمدها نوكاني niman badhul baanta la yiraahdaa dhigtaan u maleynaya oo reer oodweyna oday ducaalo cun loo oran jiray oo reeraha iyaga ah yaa noo keenay sumadaas aynu ku dhiganana sidii baan ugu dhiganaa waa geela marka waa la garanayaa qolada iska leh marka sumadiisa la waa la garanayaa waa taarikadii hasha marka nin walba waa garanayaa sumadaas hashan xarbi la yiraahdo dhowr qolaa iska daba macaashto marka sida arkaysan nirigta loo yeero hasha loo yeeriya marka hore waa ka casa hashuna waa ka casa sudunu nacaya marka way ursanaysaa marka hore way ursataa taasina waa maandeeq waa hasheenii maandeeq magacaas waa magacaana maandeeq bal bahasha quruxdeed lama heli karo haday dhalasaa quruxda marka maandeeq wax loogu bixiyaa waa quruxda hashu magaca waa la baxdaa waxa lagu oranayaa hay hashaas magaceed wali markay curatay la baxaysaa magaca oo la ogaanaya marka Soomaalida dhaqankeedu wuxuu ahaa inay ilaaliyaan geela inay xoolaha ilaaliyaan bariyo dhexdaas laga tagay anigu waa ku soo noqday waxaan ahaa markan meeshan asaasay sanaa geelu kuma badna waaniga ku sheegay dhaxan baa jirta uu dhaxmooda waaniga waxaan u dhisay haddana daarba baan ka dhigayaa derbi baan u xidhayaa marka
wax la dhaqan karee intii la isu tago caanihiisa waxaan u malaynayaa in dad fara badan ay kaaga dayan doonaan ama ay wax ka baran doonaan aad baan ugu farxi lahaa weliba waxbaan bari lahaa waayo wuxuu cuno cudurka ku dhaca wuxuu diido wixii oo dhan waa ku takhasusnay hadda annagoo wala kaashanayna dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland oo runtii aad noo taakulayso waxna tarta ama talaha noqoto ama tusaalaha noqoto ya hashuni gudlanta waxa lagu yaqaanaa way saaloonaysaa intaan caanaha laga lisin marka taasay ku tusinaysaa ya naaskii xanuunaya aad hawga lisin naas baa yara xanuunayo eeg xasan ku siidkan yahay isaguna calo haddaan su'aal kale ku weydiiyo bari dhexda ahayd Australian tagay nin Australiana oo caddaano sanoo kale geel meel ugu dhaqay ayaan beertiisa tagoon barnaamij ka sameeyey waxyaabahay samaynayeen ee Soomaalideenu aynaan samaynin waxa ka mid ah in biyo diiran marka hore candhada lagu maydho in hor intaan la maalin taasna Soomaalideenu ma samayno wax tarmaleeda bay kula tahay wax tar badan bay leedahay uskagii hasho ay fadhiisatay xerada ayaa laga maydhaa maracad baa laga mariyaa xitaa haruubkan la culayay haruub gaalkee inaga dhaqankeena laguma lisay waxa lagu lisaa baaldi macdan ah ya oo aan mirir lahayn caanaha dhadhankooda culayga ma anagu ma samayno dee inaga dhaqankeenu culaygii bay dadku doonayaan culayga ma sheegayo laakiin tamaydhidoo kale maydhida ma samayno laakiin inaanu samayno aad baad ugu maasantay inaad noo sheegtay inaanu samaynana waa tahay meelo badan oo lagu sameeyana anigu waan soo arkay oo waan arkay gaar ahaan xagga Kenya niman Ingiriis oo geel badan dhaqay marka waa wax wacan laakiin anagu ma samayno hadda nasiib daro adaan ugu kordhiyo waa faa'iido weyn oo qaadanayna xaga iyo day xirru kula tagay xag la maro iyo xaalada baray iminka laga bilaabo cali oo kamarada duubayaan ku wareejinaya mikrofoonka deedna anuu hawshii kale aan noo qabanaya idinna waa idiin soo niyeynaya hadhowkii iyo caanihii xoorinaya waa caano la yaab leh wey magaalka caw marka caanaha sidoo kale loo dhamayo waxay dhawaan cabayaa cabid maaha waa dhamid soo waa dhamaya aniga ma igu soo wartay raxmi muddo dhowr bilood bay imika halkan ka shaqaynaysay Somaliland wadanka Britain bay ku kortay wax ku baratay ilaa yaraanteedii ay joogtay raxmay sano kale caano inta loo soo maalay deedna hortaada lagu maalay sano kale ma u cabtay weliga ma cabin هاي حسوستا لكن وأورجانيك ده هاي حسن وحيور سبتها حسن هذا وحيور المهدي يا والمهدي بيرادينسا وسودا إنجلترا وي عبد الرحمن ويسقون نلا صعدة oo nin reer magaalo ah oo hay'adaha la shaqeeya ayaa isagana kalkiisa ay timid oo hada Cabdiraxmaan goorma kuugu dambeysay adigana sano kale wallahi anigu caanaha waliba geela sano kale loo soo dhisay mar iyo laba waan soo cabay marka magaalada Hargeysa deganahay duleedkeeda imika magaalada Ceergaabin joognaa laakiin magaalada Hargeysa deganahay duleedkeeda ayaanu dhowr jeer u baxnay anagoo asxaab iyo koox wada socona marka way jiraan laakiin may badnayn ilaa 2-3 jeer ayaanu soo tijaabin oo maad geel jiray waliga ma geel jirin way horta isku daydeed hadhow caana ka hadli doontaa
markuu saasoo kale u cabayo ee dhowr goor uu qurquriyo magaabin baa la yidhaa soo ma haa waa magaabinaya wuu magaabinaya caanaha mar waa la dhamaa oo waa la qurquriyaa marna waa la magaabiyaa markaa hadda wuxuu ku jiraa qurquradii buu ku jiraa magaabintuna markaad intii afka laga buuxsado la liqo yaa qofkaa loo dhiiba markaasuu isna afka ka buuxsanaya waan xusuusinaya inaysa soo dhaafay waan ku arkay cabdisalaanow waxaan xasuustaa markaad caanaha cabayso caanaha geela waxaad xasuusanaysaa yacni qiimaha caanaha geelu ay ku leeyihiin Soomaalida agtooda marka waxaan xasuustay markaan nimka caanahan cabayay nin gabayaayo oo ka gabiya caanaha Soomaalida ama geela Soomaalida guud ahaan isagoo amaanaya gaarna uga sii hadlay caanahooda wuxuu yiri qodxihii dhalaannimo kugu muday ayaa kaaga soo dhaca yacni halkii gaarayaan waa yaqaan dhulay qaboojaane qodxihii dhalaannimo kugu muday ayaa kaaga soo dhaca marka وعانو أما وحويان عنتو قاريسا شركة قردن عافماد أهان إيا نفق أهانا runtii aad ku anfacaysa marka imika dadka raaca geel oo kale tusaalaan geel jiro oo kale caanahan u bicabaan wax cunto ah oo cunaan ma jiraan marka micnaheedu waxa weeyaan cuntana way ku noqon karaan cabitaanna way ku noqon karaan dhinac kasta way ku buuxin karaan xusuusi Cabdiraxmaan uu ka hadlayo warbixino laga qoray caanaha geela ayaa waxa lagu sheegay in maadaama inta badan geelu uu ku noolyahay dhul saxara in ilaahay uu ugu talagalay nirigta yari inay ku badbaado caanahaas oo kaliya dadna toban laab baa ku jira baa la yiraahdaa vitaminska ku jira caanaha kale marka taas adduunyada imka isla ogtahay inkastoo de halihii la yiri kharibay markii calow farmasiyada inta la dhigay la yiri waa waxa loo isticmaalayaa alaab caafimaad ma wax badan baa laga sheegaa laakiin dhaqaatiirtu aad iyo aad waxay u sheegeen inay gaar ahaan caanaha geelu u wacan yihiin dumarku markay umulaan iyo intii uurka leeyihiin waa ku taliyeen dhaqaatiirtu dumarka waxayna ku sheegeen qofka dhalan doona ee gabadhaas ay dhali doontaa waa ka lafa adkaanaya waana ka caafimaad badnaanaya caanaha caliyow aan kaa dhex gala adooga raalliya waddanka Holland baa isna waxaa ku taalla beersan oo kala iminka ka hor maraan barnaamij ka sameeyey waxyaabaha la yaab kale dee inagu farsamadii casriga ahayd weli maynu gaadhin waxaa ka mid ahayd in caanihii geela laga dhigay kaneen oo deedna meesha lagu iibinayo markaad sii baxayso ayaad jabada ku sii ridanaysaa dabadeedna waxay taasi meesha ka saaraysaa roob baa daayo wadadii baa xidhantay iyo gaarigii baa dhiiqa galay iyo ma garanaysaa geelii baa guran iyo waxaasi ma jiraan jabadaada adoo ku sidaad koobiya ku darsanaysaa galaas caana geela ninka tuuray marka taasi talo goormayna soo gaaraysaa waxaan isleeyahay generationada hadda bilaabay geela inay dhaqaan oo fariisiyaan caruurtooda iminka mid yar oo aan dhalay oo fikrado badan buu aaminsan yahay saakuu weydiinayo lahaa hashaydii beryahan maarag waana shinjir war hashaydii beryahan maarag meeday markaasaan aabba hasha waa rimi weydo waa la iibshi markaasuu maxaa la iigu sheegi waayey wuu ilaalsanaya waa nin geela wax ku leh mid aan jecelayo halkaa fadhida hadda ayuu anigu tanaan qaadanaya haddii tayadii la iibshi waxyaabaha kale laga sameeyeen Australia iyo Holland ba ku arkay creamka kamid ice cream cheese bay ka sameeyaan iyo Holland waxaan ku arkay caloon kugu daray weligii ismaan lahayn wada arki doontaa caanihii geelo roodhi laga sameeyey oo roodhidan slices ka la yiraahdo isdul saaran oo caanihii geela dadda taasna waad sii qaadaysaa kiriinkaagana waad qaadanaysaa ma waxaanu doonaynaa inaan ka baranno inaanu ka baranaanu doonanaa laakiin weli qolyo ayaga fadhiisiye geelu waa yarnahay waxaanu doonaynaa inaan bahalkii hala fadhiisiyo bahalkii qoriga lala daba socday ayada daaqayay wiilka la socday isaguba ay halaagmeen halaga daayo hala fadhiisiyo alo aad iyo aad baad u mahadsan tahay oo dee caani baa lee hor hayaa keena kuu qabtee mikrofoonka yara qaba barnaamijka inta kale adaa inoo waday haye haddana Hareri baa caanihii qurqurinaya waxaanu aad ugu faraxsannahay imaatinka ay noo yimaadeen caawa wallaahi wakaa sii daayey wakaa waxalugu waxay sharaf leeyihiin markay calowsan oo kale hadhuub ku jiraan hortaada lagu maalay hadhuubkuna culan yahay urtaa ma jeclaa dadka ajnabigii ee caanaha qaata
كورة سعد waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horeysay la kulmo xarun noocan oo kala aan waliba noqotona markii ugu horeysay malaha caana geelan cababa intii aan xasuustaa ma garanaysaa waxa ka maqnaa kulli ha caanusan moodey ma ahay mika way ka fiican yihiin san moodey ha oo markii ugu horeysay cabo ma sha Allah sharaf baan noo tahay aniga way isku ka tiirinaysaa way jeceshahay inay dadka ku dhawaato waxba ku yeeli mayso wata way istiraahaysaa taabashada istiraah bay u qaadanaysaa xoodasha la yiraahdaa hawshaas way xoodanaysaa baa la yiraahdaa geelu ma wada xootay qaar baa xoogaa buubaha laho fiiga iyadoo se waa adag baa la yiraahdaa adag baa magaceeda leeyahay hal adag ugu bixisay maadaama ay adkaysanka soo kuruskeeda ma aragtay jilaal kasta oo dhaco si kasta u gaajooto kuruskeedu waa taagan yahay waa geela ka adkaysan bada geela kale وانا هل عانا بدن هذا قاربان هلا اوغولين ميا انسان ها قارن تامن كريم بجرو عرريه تي هدان سو دافنay oo kale intooda badan ma xootaan laakiin tan waa saaxiibaday Somali say qoorta xitaa dhulka dhiga sadeena dhulka dhig Somali Somali waxoodanaysa way dhig lagu shay markaa way dhig may waxoodanaysa way kalgacal badan tahay dadkay kalgacal u haysaa laga yaabaa dad fara badan inay isweydiinayaan iyadoo abaaro laga soo baxay halka roobka wanaagsan uu ka daayo ee dhirta quruxda badan ay ku taalo kulaylkii waa malaan naga batay oo qudhayada u baahnay roobkan inaan soo dhigno horta waxaanu joognaa buurta magaca weyn leh ee caanka ee Daalo meesha laaga la yiraahdo dadku daawasho tago waanu gaari weynay waayo roob xoog la daaya arkay dhulkaas qabsaday ma sha Allah mar haddaad timaado magaalada Ceerigaabo munaad kastoo aad leedahay waa inaanad dhaafin mana dhaafi kartid basideedaba buurta Daalo deedna Daalaanu joognaa waxaan rajaynayaa roobkii ay soo yara karay waxoogaa yare in markaanu sii gudubno ee roobkuna goordhow inaga qaado aynu halkaa dalxiiska ka sii wadan doonno waa inoo qaybta dambe waxyaaba abwaanada Soomaalida ee dareenka ku dhaliyo waxa kamid ah iyadoo joogu siday oo roobkii markaa qaaday ay qorraxdiina noo soo baxday yaa salaam markaas midabkii dhirtuna sida uu akhtar ama cagaar uu sii noqday ilaahay yaa ku durdurkiina waa kalaagtayada maraya oo deedna shanqada biyo ay sameynayaan ayaad iyadana aad ugu raaxaysanaysaa buurta daaladii kollayba sida cid kastoo kaloo timeeragtay maaha meel laga xiisa gooyo waa waxay suugaanta Soomaalida hadday gabayeen noqoto iyo hadday heeso noqotoba ay ku jirto iyadoo maanta roobka intaa la guudaayo ayaa haddana dadkii soo dalxiiska tegay ay buurta lagu soo gaadheen oo waxaan jeclaa iyadoo maanta daruurtu ay sidaa tahay oo cirku sidaa isu haysto in hadda aan idin tuso meesha laag sida maanta kale ay u qurux badan tahay waayo daruurtii buurta dul saaran tahay buurtana way ka hooseysaa buurtana way ka sarreysaa waati aan idinku ballan qaaday in marka roobku qaado aanu halka laaga la yiraahdo ee ugu muuqaalka wanaagsan la buurta aynu tagi doono nasiib xumo way suurta gali weyday maanta roobkiina wali waa daayaa sida arkaysaana dhoobo fara badan baa jirta markaa sidii barnaamijkii hore carraweyn ayaan si armaa mar labaad dhiiqadan gashaan markaa xaggii magaaladaanu iskaga noqonaynaa waa inoo hadhow Ayuu timin joogi